sheekh xaaskayga ayaa maalin gadaal uga tagay markaas kadib uur bay yeelatay marka ilmahaasi muxuu noqonayaa tan kale haddii ay iga furan tahay see u socoshan karaa bismillahi raxmaani raxiim allah tabaaraka wa tacaala qur-aanka kariimka wuxuu ku yidhi markuu ka hadlayay dumarka iyo ragga isqaba mucaamalada sariirta ku dhex marta wuxuu rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala faidaa tataharna fa'tuuhunna min xaysu amarakum allah dumarku markay dahaaro qaataan oy ka qabaystaan dhiiggii cadada alla wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala u taga laakiin meeshii ilaahay idin amray min xaysu amarakum allah meeshii ilaahay idin amray oo waa meesha muxuu ahay xubinka loogu talagalay halkaasaa rabbi tabaaraka wa tacaala ku amray in xaajada lagu guto bimacnaa wixii ka gedisan iyo meel kale lama ogolo waaye saas daraaddeed baa axaadiista nabigeenu sal alla alay wasalam aada arrintaa u adkaysa oo nebigu waa reebay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh dumarka muxuu ahay maxaashida iyo meesha saxarada iyo in looga galmoodo waa diiday nebigu salawaatu rabbi wasalamu caleyh bal lacnad baa ku soo aroortay waxay ka mid tahay dembiyada waaweyn oo ilaahay laga galo tabaaraka wa tacala mid ka mida wey ha ahaato waa dembi weyn oo toobad u baahan marka hore in layska ilaaliyo u baahan haweentu inay ninkeeda ka ogolaato ma ah waa inay ku diido oo haddiiba muxuu ahay damacaasi gala ayna ka ogolaanin laakiin hadday dhacdo oo shaydaan ka shaqeeyo markaasi haweentii ma furmayso muxuu ahay waxyaalaha furitaanku ku yimaada ka mid maaha furitaanku wuxuu ku yimaadaa ama ninku inuu reer ka furo ama maxkamadi ka furto ama dalqadaha wax ku badasho furitaanadu saasay ku yimaadaan laakiin ficil nooc ama uu ridoobo diinta ka baxo laakiin muxuu ahay haweentiibuu qaab khaldan ugu tegay furitaankuma yimaado ilmaha uur galayna waa ilmo sharciya xadhigiina weli waa jiraa waa isqabaan inuu soo ceshadiyo inuu guursadana dib uma baahno maxaa yeele kii horaa jira laakiin khalad buu galay oo dembi buu galo toobad u baahan ilaahay u soo noqdo arrintaana wixii hadda ka dambeeya ha iska ilaaliyo wallahu aclam